ninbaa xiniinta lagaga dhex saaray saldhig dhexdiisa qaar baa isha laga riday midna anaaba arkayo inan miskiin oo saraakiillaag la dhacayso waxaan soo jeedinayaa oon idinka codsanaynaa in si wada hadalku si fiican dabada loogu fadhiisto in ragga xidhan la soo daayiyo sida caadigaa bini aadanku macnaha qoridda ee taariikhda loo qoraa waa in lagu cibro qaato in badan waxaa ku aragteen qur-aanka factabiruu yaa ulil absaar ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay caad iyo samuud iyo reer bani israa'iil iyo dhacdooyin kale oo ilaahay xusabe taariikhda qur-aanka wuu kaga warramay sababta uu ilaahay taariikhda ugaga warramay waxa weeye si ummadda qur-aanku u soo degay ee nebi maxamed cali inay ka baaqsato wixii reer caad ku jabeen wixii reer samuud ku jabeen wixii reer bani israa'iil halkaa dhigay inay ka baaqdaan ayaa taariikhda ilaahay qur-aanka ugu xusay waxaan u qaadanayaa dee saaxiibkay maxamed dhabeeye cabdiraxmaan axmed cali beeroole ma ahayn nin xoolo dhaqatana ma ahayn dhakhtarna ma ahayna siyaasi buu ahaa siyaasadda laga hadli maayena dee isma qabanayso way yaro adkaanaysaa nin noloshiisuba siyaasad tahay in la idhaa laga hadli maayo suurtagal noqon mayso waxaanse hadalkaygoo kooban odhanayaa soomaalidu maanta hanti iskuma hayso beerana iskuma hayso meel kastoy joogto innaguna inta qabiiladu meelahan habeenkii la kala dhuuntan waa ka been sheegidda taariikhda weeye annagaa reer hebel xukumi jirnay annagaa idinka sarrayn jirnay annagaa huuhaa waxaan macnaba lahayn taariikhda waxba ka jarayn wey waayo maanta waxaan arkaa maran ka taagan ragga nool ee sanam dhexdooda maran baan arkaa ka taagan oo weyn oo la isku haysto waar halkaa booska ayaa hayay iyo ciddii haysee aan laisla garanayn waa taariikhdan qabyaaladaynayna haddii runta laga sheegayo waa la isla garan lahaa cabdiraxmaan axmed cali anigu aad baan ugu daba jiraa taariikhda ee sanamtoo waa dhegaystaa waa raadiyaa raggii intaa fursada aan u helay raggii wariyayaasha ahaa iyo raggii kalena waa ku taxana xilliga cabdiraxmaan la dooranayey ee shirkii balligubadle lagu dooranayey xaalad siyaasi baa ee sanam dhexdeeda ka taagnayd xaalad siyaasi oo adag ayaa dhexdeeda ka taagnayd car iyo wir bay maraysa dawadii rag baa helay oo yidhi maanta dalka yaa u dana ragga yaa ururin kara ragga yaa isku geyn kara waar cududdii yaa isku geyn karaan guryihii ku noqonee cabdiraxmaan baa la dhaafin waaye history waxaa la dhaha history repeats itself baa la dhaha taariikhdu iyada soo celisa waa maasantii qodobka 129 ee buuggan waxa ku xusan sidii codadka loo kala helay waxay ku sheegaysaa inay nagtu nagtahay berigaa raggii dhinaca badbaadada hogaaminaya anigu feershankaan hayo yaanan odhan runta feershankaan hayo axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa lahaa war cabdiraxmaan ha la doorto rag uu ku taxan yahay sidaan warka ku qabo badbaadada dalkaa ku jirta in snm dib loo mideeyaa ku jirta maanta buuggan waxaa la daafurayaa iyadoo muran siyaasi uu jiro dalka muran siyaasi uu jiro murankaasi markaad akhrido wuxuu iskaga dhinacyo badan yahay oo afkaartiisa iyo hadallada la isticmaalaya ee weegyihiin kuwii jiray maalmaha raggiinniina waa fadhidaan ee ragguu la kala dhuumanaya lala kala waxaynayay maanta waxaa la doonayaa in haanta gunteeda si fiican loo eego waxaa la doonayaa in raggu ay ilaaliyaan haddii dhigaal wanaagsan ay shalay lahaayeen inay dhigaalkii wanaagsana ilaaliyaan oon dhallinyarada cusub waxaad u sheegaysay inaad soo samaysay iyo waxaad maanta ka shaqaynaysaa aanay kala tegin waayo somalilandaynu doonaynaa waa somalilan runsan waa somalilan la isku hambaynayo waa somalilan dadka sharciga in la akhriyo waxa ka muhiimsan heshiiska siyaasiga ka muhiimsan dadku markay siyaasadda heshiis ku yihiin ayuu sharcigu shaqeeyaa nabaduna ay shaqaysaa in nabadgelyada la ilaaliyaana waa lagama maarmaan waxaa kaga baxaya fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya maadaama uu joogo wasiirkeennii wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo odayaashii kale dee in la ixtiraamaa fiican odayaasha iyo golaha guurtida ee wadahadalka ku jira waxaan soo jeedinayaa oon idinka codsanaynaa
in si wada hadalku si fiican dabada loogu fadhiisto in ragga xidhan la soo daayiyo tallaabana laga qaado caawa buugga cabdiraxmaan wuxuu ku soo beegmay xilli ay dad ka cabanayaan oo eedan loo jeedinayo ciidankii inay dadka nabadgelyadiisa ilaaliyaan loogu talagalay oo la leeyahay nin baa xiniinta lagaga dhex saaray saldhigga dhexdiisa qaar baa isha laga riday midna anaaba arkayo inan miskiin oo saraakiin laag la dhacayso kuwii loo soo halgamay kuwa laagga lala dhacayaad sheegaysaa waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin si wada hadalku u fadhiisto waa wada fadhidaan aamina marwadaa sheegtay halkan istaaga raggaan ooda laga qaado